كنت معنا ونكسن إذا لهانتي بديجيزي الكنوس ودوادة جراد كورية يحبنت وحبرشدا وحنا شيكدي تنكو الرئيسي كوسو قادن اللغنز وهويل يرو اللي احترا كنا نول لاتين أمريكا يهلجن كو وحبرشدي سوم مريو شيكدا التطبات كانوا وحنا كوسو قادنينا رود وهجبر لبي تبنجرا وحكونوا شيء ودنك بابوا نيوغينيا كالبيت كأفريقيا وحين كسو جدا قوي الصبولة وكفوق deegaanada ay waxbarashada iyo magaalooyinku ka jiraan waqooyi xoolo dhaqataa halgan ay u gelisay iyo waalidkeedba sidii ay wax u baran lahayd waxayna rood leedahay Stunden von unserem Dorf entfernt. Aber dann ist die Lehrerin einfach weggegangen und die Schule hat zugemacht. halkan ayaanu ku lahaan jirnay iskuul 2 saacadood oo kaliya ayaanu socon jiray wuxuuna ku oolaa tuulada nagu xigtaa balse hadda iskuulka waa la xiray macallinkii ayaa iska tegay kan noogu dhowna waxa uu ku yeelaa tuulada kale ee Meero waa meel aad nooga fog ruud hadda waxay u guuraysaa si ay waxbarasho iyo mustaqbal ayatiin loo hesho waxayna leedahay way wacnaan lahayd inaan halkan iskuul ka heli lahaa Es wäre schön, hier zur Schule zu gehen. Ich bin schon traurig, dass hier keiner mehr ist. waan ka xumay inaan hadda tagayo waysan halkan waxbarasho ka jirin iskuulka ugu xigana waxa uu jira 100 kilomitir waa meel safar 5 cisho oo lug ah lagu gaarayo jidka loo marayana waa duur bahala galeen ah oo caruur ay khatartiisa leh ruud waxay bilowday safarkeeda cilmi doonashada ah waxaana kaxiyay adeerkid si uu gaadho halkay beegsanayso adeerkid waxa uu leeyahay Gefährliche Schlange. Sie ist dunkelbraun und kann euch mit einem Biss töten. Hier sind erst kürzlich Kinder an Schlangenbissen gestorben. jidkan waa ku khatar badan waxa halkan ku nool noocyo kamid ah masaska dilaaga ah oo hal mar uu qaniina aad u dhiman karto caruur badan ayuu cunay oo deegaankan ugu dhintay intuu safarka ku jirno hubso halkaad cagtaada dhigayso ruudna waxay leedahay waan ka cabsoodaa masaska balse halkan masas oo kaliya kuma noola ee xayawaano kale oo dilaaya ayaa iyaguna ku nool maalmo badan oo socdaala waxay ugu dambeyntii soo gaadheen webiga Takila dad tiro badan ayuu webigani haro u qaaday oo halkan ku dhintay intay ka talaabayeen halkan laga bilaabana 12 jirka ruud iyada ayay tahay inay kalideed socoto halkan ayuu adeerkeed kaga hadhaya waan cabsooday waxaan ka baqayn uu laashku ila qarwamo balse nasiib wanaag waan ka soo nabad talaabay Ich bin da. Ich dachte echt, wir kippen und ich ertrinke. Aber ich hab's echt geschafft. shan cisho oo socdaal ah waxay ruud soo gaadhay halkii ay beegsanaysay waa dugsigan halkani dugsi waxbarasho oo kaliya uma aha ruud iyo waxay u noqon doontaa hooy ay deganaato sanooyinka ay waxbarashadeeda ku guda jirto maadaama aysan ku laaban karin deegaanka fog ee reerkooda ku nool yahay caadiyan waanu buuxnaa qofna ma qaadano balse maadaama aad intaan laga soo socotay adiga waan ku qaadanaynaa halkan ayaad wax ku baran buugaag iyo qalmaana anaga ayaa ku siinayna sidoo kale hooy ay halkan ku noqonaysaa aad ku noolaato intaad waxbarashadaada ku jirto maamulaha dugsiga ayaa niyad wanaag ku qaabilay ruud Bücher und Stifte von uns. Und natürlich unterrichten wir dich. muddo kooban kadibna waxayba ruud heshay saaxiibo cusub oo ay jidkeeda waxbarashada u weheshato waxaan ahay qofka kaliya ee deegaankayga ka yimi ee halkan wax ku baranaya wax caadiya maaha runtii aad ayaanse ugu faraxsanahay inaan anigu fursadan helay Einzige vom Berg Bosavi hier in der Schule. Das ist seltsam, aber es macht mich auch stolz. waxay shekada tani dhigaysayna tusaysaa halganka kala duwan ee ummadaha kala duwan ee qaaradaha dunida ku nooli ay u maraan si ubadkooda waxbarasho u helaan waxbarashadu waa xuquuq asaasiya oo ay tahay inuu ilmo kasta helo xaalad kasta uu ku sugan yahay balse nasiib darro malaayiin ubada oo caruur Soomaaliyeedna ka mid yihiin ayaan helin fursad waxbarasho sidaan ognahayna dhigaystay ilmo waxbartay oo kaliya ayaa kan awooda inuu mustaqbalkiisa kan ummadiisa iyo kan bulshada la jooga intaba wax ka bedeli kara waxbarashadu waa xuquuq asaasiya oo ay tahay in ilmo kasta helo waxaan sheekoodan iyo kuwa kale badan oo gooskoosaba ku baran doonaa halganka ay ummadaha kala duwan ee dunida ku nool ay u maraan si ubadkooda waxbarasho u helaan balse sheekada tan ku xigtay toddobaadka soo socda waxaad iyana ku maqli doontaan dhibta soo wajahda ubadka markay ay dhashaan waalidkood waaya waa wiil yar oo markii uu dhashay hooyadii waayey muddo kooban ehelkii waayey kadibna ay kafaalo qaateen dad aan la af iyo midab toon ahayn kuna barbaaray nolol uusan ahayn tii uu dhashay
intaan toddobaadka soo socda iyo isla sheekada haddaan qaybidiisii sheega ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo channelkeena garaad kuriye haddaad ku cusubtay ha ilaabin inaad subscribe iyo like labadaba saarto tan iyo kulantideena dambana nabadgelyo